تسأل وناكسن أرين سولي سناك وأرين قف كستو صومالي وموقت عندك قرصونة لبدا قبل runtii waxa ku dhacday nasiib darro siyaasadeed laba dawlad goboleed oo Soomaaliyeed ayaa mid kasta wuxuu leeyahay aniga tirsan mid toos u xukuma boqolkiiba boqol xukuma oo maamulkiisu gaarsan yahay oo ka wada talaan ma jiro marka dhibaatada dhacday waxa weeye hay'adihii caalamka ka yimi ee rabeen wax gaarsiiyaan markay mid tagaan hadii dawlad goboleedka gobolka ay tagaan ama hadii tusaale ahaan garowe tagaan oo ka baxaan garowe ma tagi karaan labada gobol toos ma tagi sababta way qayb ka mid ah Soomaaliland bahaysta dhexda ka soo noqonaa hadii Hargeysa yimaadaan hay'adahaas rabaan inay tagaana ma wada tagi karaan qayb Puntland bahaysta marka dhibaatadaas waxa weeye xaggana maaha waxay toos u helaan loo qoonday oo haystaan ma jira marka hadda tusaale ahaan bishii hore October waxaan saxanay 5 sano soo socota heshiis aan la galay UN-ka oo cadeynaya qeexaya ana soo ogolaanay waa saxanay in toos uga shaqeeyaan dhulkaas macna ma sameynayso in ilmaha jooga gobolada Sool jooga ama Sanaag jooga iyo kuwa Nugaal iyo Waqooyi Galbeed ama Muqdisho ama Kismaayo ama Baydhabo halka jooga wax kala duwan ma jirto shacab Soomaaliyeed xuquuqda same xuquuq baleeyihiin isku xuquuq weeye isku duruufo weeye isku mid weeye marka in midna la yiraahdo sabab jira awgood iyo siyaasado gobol kale ka jira daraad waxba lagu ma keeni karo kuwa kalena la tagi karo in aniga oo taalahan ka soo jeedo gobolka Sanaag ana tagi karin gobolka Sanaag la yiraahdo timaadin balaaya dhacays laakiin gobolka Soomaaliya tagi karo mashaariicda qaar kale leeyahay lama geen ka sababtoo ah xagga marsiisana xagga xanaaqista xagga marsana xagga xanaaqis marka arintaas horta waa arin xuquuq insaanka xataa ee Soomaalinimada iyo dawladnimada dhaawac ku ah marka dawladahan dadka Soomaaliyeed oo noo sameeyeen shacabka Soomaaliyeed marka soo jooga noo sameeyeen dadka dawladda federaalka dawladda wada ah gobolaha kala jirjireen ee dawladda Soomaaliya kor ahaan wasiirka qorsheynta federaalka Soomaalida loo yacdo ila raas Gamboni waa soo kaymid kul ana wasiir kale qorsheyn wadanku leeyahay ma jiro dawlad goboleed waa leeyahay wasiirada waa inuu qorsheeyaa marka kale cad jooga ee gabadha raas Gamboni joogta waa inay iska soo qorsheeyaa marka ma boodi karo kuwa dhexda oo ma oran karo kuwa hadii wax loo qorsheeyaa ama wax la gaarsiiyo kana xanaaqay cadaalad ma xaga shaqeynaa marka arintaasi waa arin runtii anaga fikirkeyga dawladda federaalka hadda Soomaaliyeed way xuquuqdooda leeyihiin qof kasta Soomaaliyeed la mid yahay xuquuqi marka hadii qolo tiraahdo meesha anaga ka talina oo cid kale ma keeni karto lana ogeeyna anaga ka talin waxna gaarsiin kar qolo kale tiraahdo anaga saas oo kala dadkii waqtiga nasiib dar aakhirkii waxa dhaawacaysa dhibaatooyinka Soomaaliyeed oo la ogyahay turfaha ku sugayeen marka arintaas waa very clear arin cad weeye hay'adaha marka gargaarka hay'ad oran karta kama shaqeyn karo oo ma tagi karo oo saacad oran karta ma jirto hay'ad tiraahdo la xisaabtamayna kama shaqeyn karo hay'ad tiraahdo laakiin wadankan joogaya had gudub weey waxaan aqbali karaa ma marka hadii ay jiraan hay'ado nooca dhaqmaya arimahaas oo kale ka hadlaya leh gobolada ma tagi karno احنا ما قارسين كرن ووران كران فرسمهان ونوغا ادagta meelaha qaar ko inaato laakiin si kale loo gaarsin karaa hay'ada maxalli leeyahay lagu dhiibi karaa si kale wax loo gaarsin karaa laakiin total ma tagin wax aqoon ma siyaasadda dawladana ma